بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحينا معانيه تبصرنا تنير الفكر تعنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. معانيه تبصرنا تنير الفكر تعنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. وصار لنا كحارسنا من الغارات يحمينا. هو المنهاج نقرأه إلى الجنات يدعونا. سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا. سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادين ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا. وإن تسأل عن العليا فمعنى وصفه فينا وها نحن وقد بتنا نرتله مصلينا جوار الكعبة الغرة تواعدنا له حين فرتلنا وتبرنا وتجويدا وتلحينا. جوار الكعبة الغرة تواعدنا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحينا معانيه تبصرنا تنير الفكر تعنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. معانيه تبصرنا تنير الفكر تعنينا فصار. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله حكومة سنة الله سبحانه وتعالى كو أمانة يهي مركا كوباد الله سبحانه وتعالى وعندما يسترين يهي لمنان مليه مركا لباد سيدة الله سبحانه وتعالى قرآن كل شيء وحكستا أود هايستان ووناق الله إساق إنسيه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وحكستا وناق ونعمة أود هايستان حق إلهي بكتمه سبحانه وتعالى. هذا نمر كي دبات إذن كل عضو إساق بعد أقيليتان oo carartaan meel kale oo carartaan maleedin. Allah subhanahu wa ta'ala marka amaanan oo mahadsan nicmooyinka Allah inoo galay subhanahu wa ta'ala oo la tira koobi karin sida Ilaahay Quraanka ku sheegay ayaa waxa kamid ah inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala isoo abuuray labada jinsi ee ragga iyo dumarka sida in badan oo Quraanku sheegay
axaadiista nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ay faahfaahisay labadan jinsi abuurkooda macno weyn baa ku jira. aadam buu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala siduu qur-aanku sheegay, xaaskiisii xaawa ayaa isaga laga abuuray laftiisa. waxay leeyihiin ama qur-aanku waa tilmaamaya abuurista xaawo laga abuuray aadam laftiisa laga abuuray macnaheedu waxa weeyaan in ay labada jinsi ay noqdaan laba jinsi oo hal meel ka soo wada jeeda, oo isku heshan kara, oo wada noolaan kara, oo isku xasilaya, oo yani waxa weeyaan maaragtay isku nooca oo aan kala duwaneyn. xikmad rabbaaniya subxaana wa tacaala baa meesha ku jirta. laga bilaabo maalinka ilaahay subxaana wa tacaala aadam iyo xaawo uu abuuray ilaa adduunyadu intay ka dhammaanayso, alla subxaana wa tacaala bini aadamka tarankiisa waxa uu ka dhigay inuu ka yimaado labadaa jinsi kulankooda, is-araggooda. bini aadamka marka haddii isu imaadka iyo kulanka labada jinsi la waayo, bimacnaa bini aadamkii ma jirayo, tarankiisii waa dabar go-aya, ma jiri doono. sidaas daraaddeed baa alla subxaana wa tacaala waxa uu inoo jideeyey qaab labadii jinsi ay isku arki karaan, wixii maslaxa iyo dan iyo faa'iidana ay kala gaari karaan, wixii dhib iyo la imaan karana noloshooda u keeni karana ay lagaga baaqsan karo ama la isaga jiri karayo. bini aadamka labadaa jinsi sida ay isugu baahan yihiin oo ka mida maalan cuntada iyo cabitaanka baahida bini aadamka u qabo, si la mida ayuu wuxuu ugu baahan yahay labada jinsi midka kale uu ugu baahan yahay. sidaas daraaddeed ba allah subxaana wa tacaala qur-aanka markuu ka hadlayo waxyaalaha nafta ilaahay uu jeclaysiiyey ayaa waxaa lagu hormariyey jacaylka labada jinsi ka dhexeeya. allah subxana wa tacala wuxuu uhi fi suurati ali cimraan zuyina linnaasi xubu shahawaati min الnisa. insaanka waxaa loo qurxiyey ba alla yihi subxana wa tacaala waxyaalaha naftu ay jeceshahay, waxyaalaha naftu ay jeceshahay waxaa loogu hormariyey dumarka, caruurta, xoolaha qaybahooda kala gedisan, wahaakada beerihii, gaadiidkii, halkaasaa laga sii waday. macnaheedu waxa weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinka bini aadamka uu siiyey kuwa ugu muhiimsan bay ka mid tahay, kuwa ugu muhiimsan ayay ka mid tahay. haddana isla markaa allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay oo ku sheegay bini aadamka noloshiisa qaybaheeda kala gedisan mararka uu ugu liibaan badan yahay, oo ugu deganaansho badan yahay, oo ugu xasiloon yahay waa marka labada jinsi ay wada joogaan, oo khaasatan ninka iyo xaaskiisu ay wada joogaan. ilaahay aayadihiisa waaweyn buu ka dhigay subxana wa tacaala. wuxuu rabbi leeyahay wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma ina fii dalika laaayaati liqowmin yatafakkaruun. allah subxaana wa tacaala aayadihiisa astaamaha waaweyn ee kelinimadiisa, awoodiisa, qudradiisa ku tusaya waxaa ka mid a inuu abuuray idinkana idin abuuray, naftiinna xaggeedana idinka abuuray dumar. waa midaan hadda ka hadlaynay aadam oo laga abuuray xaawo. labadii jinsi waa laba jinsi oo la kala abuuray wey. maxaa labada jinsi loo kala abuuray? litaskunuu ilayha baa la yihi subxana wa tacaala, si aada ugu xasishaan. hadduu jinsi kale ahaan lahaa oo bini aadamka shahwadiisa iyo baahidiisa inuu ku guto ajnaasta kale makhluuqa laga dhigi lahaa, maynan dhacdeen in laysku xasilo, mana dhacdeen in laysku dago. laakiin in laysku xasilo oo yani wax weyaan laysku nasto oo laysweheshado oo marka la wada joogo ay labada ruux dhex marto, runtii wax weyaan yani wax aan dhex marin yani xaaladaha kale oo dhan waxaa keenaya ilaahay subxaana wa tacaala waa labadaas jinsi oo la kala abuuray, isku meel ka wada yimid min anfusikum baa la yihi subxana wa tacala. naftiina laga abuuray, naftiina laga abuuray. maxaa laydinka abuuray? litaskunuu ilayha baa la yihi subxana wa tacaala, inaad xasishaan, ku degtaan, raaxaysataan, ku nasataan baa alla ugu talagalay subxana wa tacaala.
litaskunuu ilayha saas daraaddeed gurigu waa sakan xaasku waa sakan ninku xaaskiisa sakan buu u yahay bimacnaa waxa weeyaan waa hoygii lagu nasanayey waa hoygii lagu xasilayey waa hoygii mataacibta iyo dhibaatada iyo rafaadka lagala soo kulmay nolosha yani waxa weeyaan lagaga bixi lahaa ee lagaga nasan lahaa saasuu alla ka cabiraya subxana wa tacaala kadibna alla wuxuu ihi wajacala baynakum mawadatan waraxma alla subxaana wa tacala wuxuu dhexdiina yeelay kalgacayl isjacayl iyo naxariis yani waxa weeyaan gurigaa ku salaysan oo nolosha qoyskaa ku salaysan marna kalgacayl bay ku salaysan tahay marna naxariis bay ku salaysan tahay kalgacayl bay ku salaysan tahay waa marka laysjecel yahay waa marka laysdoonayo waa marka midba midka kaleeto uu jid yani wax weeyaan mid war ruux walba uu jidkiisii hayo wey laakiin mar kale waxay u baahan tahay haddii ay waxoogaa kalgacaylka iyo jacaylka iyo u isdhimo waxay u baahan tahay inay tiirka labaad ay cuskato oo ah waraxmatan naxariis iyo isu danqasho iyo isu turid iyo isu dabacsanaan allah subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay arrintaa iyada ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakkaruun aayado waaweyn iyo astaamo waaweyn baa ku sugan dad fikiraya bayna ugu sugan tahay bal subxana wa tacala dadka u fiirsanaya yani wax weeyaan labadan jinsi say u wada nool yihiin sida ilaahay isugu talagalay wax dhexdooda ka beermaya yani wax wey gurigay wada samaysanayaan yani qaabkan markaad aada ugu fiirsato waxaa kaaga soo baxaysa inay ilaahay subxaana wa tacaala awood weyn iyo qudro weyn iyo alle keligii subxaana wa tacala awoodaan caadi ahayn baa meesha kaaga muuqanaysa darsi weyn baad ka helaysaa macnaha ood kala soo baxaysa marka yani aayaddaasi waxay tilmaamaysaa alla subxaana wa tacaala uu ka dhigay inuu qoysku yahay sakan sakankana waxaa laga wadaa bimacnaa saan sheegnay waa xasilka waa deganaanshaha waa ku nasashada waa isweheshiga waa jawigaas uu labada ruux ee isqaba markay wada joogaan ay dareemayaan taasaa sakanka laga wada ilahi subxana wa tacaala sidaasuu ka cabiray saas daraaddeed ayaa qoyska haddii uu ruuxa u hagaago ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado haddii guurku u hagaago oo reerku u hagaago shaki male waa nooc ka mida sacaadada iyo liibaanta ka mida haddii qoysku ka halaabo oo gurigu ka halaabana waa nooc ka mida shaqaawada iyo ayaandarida ka mida in badan baa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu arintaa iyada tilmaamay waxaa laga maarmaana marka ruuxu si uu gurigiisa iyo reerkiisa uu u noqdo meel uu ku nasto oo uu ku xasilo oo uu ku raaxaysto oo xasilooni u noqdo waxaa la doonayaa inuu marka horeba qaato asbaab waxaa jirta keeni karta inuu qoysku noqdo qoys barakaysan qoys xasiloon qoys lagu nasto qoys khayr ka yimaado inuu noqdo qoysku qoys shaqi ah oo dhib badan oo adduunkana rafaad ku wada jooga aakharana meel xun kusii socdo baraka la'aan ah ayadana asbaab baa keenta muhiimaddu marka waxa weyaan inaan ogaano maxay tahay asbaabta keeni karta inay guryaheenu noqdaan goobtii ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala uu yidhi litaskunuu ilayha sakanka inay noqdaan guryaheennu maxay ku imaan kartaa maxayse ku imaan kartaa guryihii inay sakan waayaan oo xasiloonidii ka lunto oo gurigii uu noqdo meel laga cararoon loo soo xiisooninba meel yani aan lagu nasanin oo mar walba kadeedii ishaysiyo dhibaato ka taagan tahay sida guryo badan ee hadda haysata maxaa keeni kara asbaabta keenaysa maxay tahay maadaama waqtiguusan aad usii dheereen asbaabtaasaan insha allahu tacala wax ka tataabanayna waxa ilahay naga waafajiyay subxana wa tacaala waxaa ka mid oo sababka ugu horeeya uu yahay oo kow ah waxaa la yidhahdo xusnulikhtiyaar xusnulikhtiyaar waa doorasho wanaagsani inuu ruuxu doorashada labada ruux ay marka hore noloshu dhex marayso nolosha qoysku dhex marayso marka hore baa la doonaya ruuxu inuu wanaajiyo ciddii nolosha la wadaagi lahayd doorashadiisa xusnulikhtiyaar oo ruuxa aad doonayso in ay nolol idin dhex marto oo guri idin dhex maro oo caruur aad kala heshaan oo aad yani wada noolaataan waa inuu noqdo ruuxaad aada uga baaraan degtay ruuxaad aada uga fiirsatay ruuxaad dhinac walba iska taagtay ruuxaad ku qanacday inaad wada noolaan kartaan waa inuu yahay laakiin haddii arintu iyadoo aanan ka baaraan deginoo ka fiirsanin oo aadan wanaajinin doorashada markaasi waxa weeyaan waxaa imaan karta waa asbaabta yani haysata guryaha qaarkood
waana asbaabta keeni karaysa in runtii wax weeyaan uu gurigu wixii loogu talagalay ee loo dhistay iyo muhiimadiisii inuu qaban waayo bal inuu isu bedelo sidii loogu talagalay si ka kadisa maxay tahay asaaska marka lagu dooranayo ruuxa nolosheedii dhex marayso haddaad nin tahayna xaaskaaga aad ku dooranayso haddaad dumar tahayna ninka nolosheedii dhex maraysa ninkaaga aad ku dooranayso maxay tahay asaasku waxa weeyaan mabda'a kama soo hadho waa inuu ruuxaasi yahay ruux mabda'iisii iyo akhlaaqdiisu ay ku qancisay